السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed maxay ahaydey waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka bacda salaan maxaabiista la sii daayay maxay ahayd la sacaan laga sii daayay waxaan leeyahay waa sax in la sii daayo maxaabiista mar haddii dadka gacanta lagu dhigo xirmo gooniya bay leeyihiin intii la hayn lahaa waa la hayay maxaabiista waxaan leeyahay labada dhinac baa la sii daayo maxaabiista oo maxay ahaydey alla fududeeyo arrinka maxaabiista hala hagaajiyo wallahi inta ka bacdi wixii hore u dhacay waaba dhaceen waxyaaba maqmaqlaya laakiin de wixii hore u dhacay maxay ahayd hala soo qabto oo hala maxaabiista hala iswadaarso inta ka bacdi waxaan ka hadlayaa Puntland waxaan leeyahay hambaliyo raadaarka loo keenay ay heleen hambaliyo waan leeyahay kaas oo ah kantaroolka dowladda Puntland wixii ku soo xadgudba ama wixii argagixisa maxay ahayd kantaroolaya intaas ka bacdi waxaan leeyahay maxay ahayd dowladda ciidamada Soomaaliya oo lagu laayay meeshan lahaa maxay ahayd tuuladii magaceedu waa beelowsanahay walaalaha magaadii way qabsaday waxaan leeyahay waxba gacanteedu kuma jiraan meesha tan waxa maamula meeshan dadka haddaan dadka shacabka la shaqeynayaan argagixisada bay la shaqeynayaan dowlad fiican oo la shaqeynaysa maamulaysan aan jirin intiina yar oo xawma hadin baa maamulinaya ciidamada intii ugu dambeysay weeyaan waxaan leeyahay gurihiina wax gacanteedu ku jira ma jirtaan waxna kama qaban kartaan hadda kaligiin tihiin oo waxaad masaacidayay wax waxaad la socda dowlad iyo shacabina aanu jirin mid walba gurigaaga aad baan leeyahay intii hadhay gurihiina kala aad baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.